السلام عليكم أصحابتي دمانتي وايد وصلنا وشدا جرالكنا markale iloobi inaa subscribe geliso channelka waa codsi taaya anyway trade ku guuleystay ma sha Allah waxa weeyaan sida aynu u predict kareyna ayuu noqday aniga waan ka maqnaa laakiin ma sha Allah sidii la rabay ayuu noqday uu soo daatay ilaa bartaas stop loss kana anaga halkaas uu ahaa waxaan ka wadaa take profit kana bartaas ahaa waa gold kan laakiin anaga waxaan kaga baxay meelahaas because ani marka ayada maadaama oo arkeenin by the way halkaasna uu ka noqon karo ayaan sii dhigtay calaamad marka aan ku garto bartaas marka uu soo gaaro trade-ka isbarta waa laga celin karaa marka meelahaas aan ka baxay laakiin ani stop loss-kayga wuu dhaafayba waxaan ka wadaa take profit-kayga wuu dhaafayba wuxuuna gaaray heer uu yani hoos u sii socda waana waxaan u malaynaya un because consolidation bearish ayuu ahaa markiisii hore oo downtrend soo ahaa consolidation buu galay moving average-ga isku soo wada dhawaaday يعني hadduu up u kici lahaa macnaheedu waxa weeyaan trade-ka against buu ku sameyn lahaa taana waxay khasaare laakiin waan ka bixi lahaa laba jeer trade-ka marka trade-ka against kuma sameyn karno hadda trade-kan oo down trend iyo buy ma dhigi karo history-ga ayaan ka arki kartaa waxaan soo socday inta badan laakiin maadaama uu trade-kan soo daadanayo markiisa hore soo socday muddana uu down trend soo ahaa higher time frame-kiisa mise aan soo eegnay down trend markiina analyze kareynay higher time frame-kiisa xataa wuxuu ahaa down trend ayaan halka uga galnay طبعا consolidation-kaas aan uga galnay wuuna soo daatay ma sha Allah guul buu ku dhamaaday ku tusa halkana sida uu noqday waxa weeyaan wuxuu gaaray halkana $7 yani waxaan ka wadaa $6 by the way what $6 hadeen dabcan fiiri meesha waxaan ku trade kareynayaa 0.01 waa trade-ka waa markii aad trade kareynayso يعني almost وحويان minimum trade minimum قاعد كتير كرين كرت وحويان ويان risky قاعد كتير كرين كرت ويان so 0.01 و number كير تكون trade كرين كرت ملعن 0.01 هذا كيجي أكون كا أنت كتيرته so مركز أيضا ما دام أكون كا كتيرته $600 live account نوعها as you can see أصحابي live account نوعها ayaa waxaan uga galay 0.01 then ma sha Allah lacagtaas ayuu sameeyay anyway trade-ka labaad oo asagna guul ku dhamaaday waxa weeyaan midda kale waxaan markuu ugu yeerayaa waa 100 pip or something salaam da kulli oo kale waxa weeyaan ilaa halkaas aan ku sheegay bartaas ayaan ka galay waxa weeyaan 2,000 iyo something waliba pip ka ima kulliga kan kale ayaad fahmi doontaa GBP/AUD oo asagna aan galay ma sha Allah oo ku noogu dhamaaday asaga halkaas ayaan buy stop uga galnay so asxaabi maxad buy stop uga gashay baad doontaa because range uptrend ayuu ahaa and then yani anigu uptrend markaan leeyahay siyaad ku garanaysaa haddaad idhaahdo ways aan isticmaali karaa jira trendiga markaad saa u eegto yani waa runta wax calaamadu saa u weyn oo uptrend aanusan sameynin baa laga yaabaa oo dhahdo waxan new range ku jira sina ma aha trend ma laha waa runta maxan laakiin aniga marka moving average-kiga ayaan fiirinaya moving average-kiga oo 250 ay kala sareeyaan waxay tusinaysaa qaabka u badan yahay dhinaca u badan yahay haddaba marka uptrend ahaan u badnaa dhowr jeer horena uu ka boodbooday 200 moving average-ka ayaan halkaas uga galay maxaan dhahay aan halkaas uga galay buy stop dabcan wuu soo dhaafay maadaama uu halkaa tegay waan rajeynaya inuu xataa meelaha soo gaaro laakiin waxaan aaminsanahay inuu kor u noqon doono because waa soo raacay waa tegay so waxa weeyaan anyway moving average-keena waxa weeyaan ayaan on dhahnay then oo dushiisa ayaan dul dhignay buy stop ma sha Allah ilaa barta inta bib ay taan eegno mar kale in waa imsa bib you know waxa weeyaan 127 bibs 127 dabcan haddii aad ku trade garanayso 0.025 oo kale dhe 0. ama 1 oo kale waxaan yani thousands of dollars bay noqon lahayd laakiin maadaama adigu mar walba fiirinayso akoonkaaga lacagta ku jirta adoo ka duulaya riski inta aad bixin karto adoo ka duulaya inaad fiiriso ma waxa aad helayso waa inaad eegto waxa aad haysato iyo waxa aad ku kordhin karto sida aad u gasho wax inta ka badan markaas waxa weeyaan way of successful mar waxa weeyaan inaad adigu isbalance karayso ma haynaad inaad maxaa wax kala badbadsato minaamin so mar walba waxaan ku trade gareynaa 90% 1 to 2 hour laakiin sometimes 1 to 1 waad ku trade garan kartaa haddaan soo markaan ka buy stop ka dhigay stop loss-kiisana bartaasaan dhigay waxaan aaminsanahay inuu barta ka dhaqaaqi karo yani waxaan aaminsanahay hadduu mar 200 moving average-ka halkaa xataa uu soo gaaray moving average-ka mar hadduu dushiisa tago
inuu kasii socon doono because mar hore ayaa halkan kasoo dhaqaaqay uu ka dhaqaaqay marka waxaan aaminsan strong support ahaa hadduu mar aadan uu kasii dhaqaaqi karo dad ba hadda 50 moving average ku trade karaya marka waxa weeyaan ku dhihi yani hadda tusaale moving average-ka 50 ha ka hor imaanin dabcan waa run because waxa weeyaan isaga moving 50 under 50 moving average ku trade karaya asagoo kale kaas muxuu sameeyaa bartan oo kale ayuu soo buy uga galaa bartan oo kale buy buu uga galaa kabacdina yani waxa weeyaan weegiisu isticmaalo waa ka laakiin haddaan weegan isticmaalin waxa weeyaan waa 218 moving average marka waxa weeyaan range uptrend ayuu noo ahaa dhowr jeer halka kusoo noqday halkaas baan ooga galay maasha allah isagana guulba ku dhamaaday lacagta uu sameeyayna aragnay marka waxa weeyaan tradeyadan labadan trade sida idin sheegay estimation si fiican buu u dhamaaday trade saddexaad uu isaga $1 khasaaro noqday waxa weeyaan sababta aan uga baxay ma ahayn inuu trade-kan khasaaro ku dhamaanin may trade-kan wuxuu u socdaa dhinacaas insha allah oo xasuusnaada video ku xigan update kareen waxaan tustaa meesha uu aado waa euro new zealand uptrend buu socdaa probably inuu halkaas soo taabto ayuu socdaa oo kor buu socon doonaa intuu halka ka soo taabanay haddana halkaas u maraya marka waxa weeyaan yani markiisii hore ayaa isagoo halkaa maraya habeennimadii halkaas ayuu marayay somewhere meelahan ayaa waxaan galay halkaasan stop buy stop u galay kan isma lahayn buy stop sida dhigteer buu kusoo gaari doonaa laakiin hal mar buu booday as you can see xalay tooleed fiiri haween markii uu saa u bilowday trade-ka fiiri waa 12 oo buuraa hal mar buu booday ayar buu ii taabtay wuu kasoo noqday ilaa intaas dhan ba khasaaro kusoo jira xalay waan iska daayay maadaama uu wax qorshaysan uusan ahayn adan waxa weeyaan mar kale ayuu soo booday bartaa laakiin ma gaarin meesha uu kasoo noqday so waxa weeyaan intaasna xalaynimadii habeennimadii ay ahayd saacadadan fiirina waa 1:15 wax yar markii laga joogo 12 laakiin waqtiga ma soo jeedin anyway trade-kan waxaan uga galay bartaa because dhowr jintaan halkaa taagnaanayo yani marar badan moving average-ka imaanayo moving average-ka intuu yimaadaad lacag ka samayn kartaa sidaa darteed maadaama uu moving average-ka dhowr jeer hore kusoo noqnoqday moving average-ka ka raac yani waxba meesha ha ka sugin in badan marka isla meeshiisa ayaa sell entry-ga u dhigay oo marka sell hit uu sameeyay marka entry-ga uu ku dhuftay halkaasna waxaa ku khasaaray $1 marka waxa weeyaan adigu qasab maaha muhiimadu ma mar walba miyaa faa'iida waxa weeyaan xataa marka aad khasaarto in khasaaraha control karto taas ayaa ugu muhiimsan dhamaantiin insha Allah waa salaamaya fadlan mar kale ha ilooyin channelka subscribe please insha Allah updated because wali trade maynu ka bixin maalinta waliba u bilow trade-ka saacada waxaan marinaa 4:15 waxaa jirta mid kale trading kiga scalping news insha Allah idin la soo socodsiin doono probably tomorrow habeenimada waqti ay tahay insha Allah ayaan u maleynayaa inuu jiro waa kana asan scalping news kaas haddii uu noqdo mid guuleysta weegaan u galdo iyo insha Allah waa intus doonaa dhamaan waa kana I think probably tomorrow weeyaan Monday 16 wow that was USD so Monday 16 tusaalahan waxaa jira trade ka oo maanta ah 6 daqiiqo Japan you can see 6 daqiiqo Japan baa jira trade waa laga baxay though today oo dhan all meeting inta dhan waxaa jirta all meeting laakiin kale information kan xad moodaa inuu maanta uu soo shaacay UST sababta uu la booday bay xalad hore waxa uu markaas sameeyay really you know what mar hore ayaan sheekeeyay hadda halkaas make sense right now right aad waad fahmi kartaa sababta uu booday bas waxaan idin leeyahay xalad hore Euro New Zealand let me go aan ku dhaho tusaalahan USD card 12 buuraa fiir xalay here we go 12 buuraa waka booditaankaas buu sameeyay inta uu booday fiiri inta bib soo noqdo ayaa 96 bib waa 98 bib waa marka xawayaan booditaanku xal iska booday moodaya waa maxay Allah because wax information ma jirin xalay ka hor baan fiiriyay intuusan yani tusaalahan axadii oo kala geli kadib dambe waxaan arkay oo kala tan yani kanan arkay kana kuma badalay yani aniga industrial relation bas ayaan arkay USD gan iyo New Zealand gan USD xaqiiqatan inta ma wada arag USD gan waxa weyn faa'iido ayuu ahaa xalay uu dhaafay kaas Japan asaga wana dhaafay asaga 6 daqiiqo bal soo noqdo asagana aan eegno let me check GBP Japan my USD Japan okay USD Japan saacada 6 daqiiqo okay 6 daqiiqo
okay isaga trade fiican maahan alright trade fiican maahan waxaa ma sameyn calaamad weyn ma sameynin wuxuu ahaa monetary statement xataa hore uma arag all meeting G7 meeting today oo dhan marka kan oo kale waxaa laga yaabaa inuu hadda evactiga sameeyo caawa ama 12 sideed marka meelaha ay tahay inuu evactigiisa sameeyo dhacda oo marka G7 laga baxo maxaan dhahaa laga baxo meetingiga u dhamaado maxaan dhahaa evacti weyn uu sameeyo in dib u boodo because G7 kaas waxaan xasuustaa weekii bishii hore waxa weeyaan si zaid ayuu u booday hal mar let's see G7 kan insha Allah soo ku dhamaaday isagana updated information baan ka siin bas wali ka jira waa kan tomorrow wax jiro oo asagana you know news haduu aan aragno su'aalahan AUD baa jira tomorrow 1530 USD baa jira insha Allah inta updated information keeda dhamaan waa soo siin doona insha Allah in video markaas xagan salaam insha Allah markale